بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكا برانو ويديمها كلا what is a primary market and a secondary market. سيدا aad ka aragtaan isku xirnaashaha suuqa lagu kala iibsado warqadaha ama shahaadooyinka maaliyadda financial markets waxaa loo kala saaraa labo. kow money market, labo capital market. qeexidda money market iyo capital market ayaan hadda ka hor ka soo hadalnay. waxaadna lifaaqa hoose ka dhegaysan kartaa xog dheeraada oo ku saabsan labada. balse qeexiddan waxaan kaga hadli doonaa A and B oo ah labada nuuc ee loo kala saaro capital market, kuwaasoo ah primary market iyo secondary market. haddaan ku horumarno primary market, waa suuqa lagu kala iibsado warqadaha maaliyadda ee marka koowaad loo soo saaro, sida initial public offerings oo loo soo gaabiyo IPOs. sidoo kalena laga gado shirkadaha iyo maalgashatada waaweyn. waana qaab u suurtagelisa shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay in ay gadaan qayb ka tirsan lahaanshiyaha shirkadooda kana gadaan babliga si ay lacagta ugu ballaariyaan waxqabadka shirkadda. haddaba suuqan waxa uu u suurtageliyaa maalgashatada inay si toos ah saamiga ama sheerka uga gataan hay-addii soo saartay. haddaan qeexno qaybta labaad oo ah secondary market, waa suuq ay maalgashatada dhexdooda kala iibsadaan warqadaha ama shahaadooyinka maaliyadda. haddaba haddaan si fudud u sharaxno labada suuq annagoo buwaagta tusaale u qaadanayna, primary market waa suuqa lagu gado buwaagta cusub, khaasatan marka ay shirkaddii daabacday buwaagta ka gado dadka raba inay u sii gadaan ama u qaataan jumlo ahaan. halka secondary market ay tahay suuq lagu gado buwaagta celiska ah ama buwaagta tafaariikhda ah, waana suuq ka dhexeeya dadka dhexdooda. haddaba haddaan u soo laabana saamiga annagoo ku salaynayna, marka saamiga ay gado shirkadda kana gado maalgashato waaweyn iyo shirkado kale, suuqaas waxaa loo yaqaanaa primary market. balse marka maalgashatada ay ka sii gadaan kuwo kale, suuqaas waxaa la dhahaa secondary market. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.